كشوا دولنا الدكتور خضر عبدي إبراهيم وحسبنا موديل سلام كشوا كذا ما مغرب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka ugu horeysa waa in salaamaya waxaan inii soo jeedinayaa runtii mahadnaq kal iyo laab ka soo go'ay baa inii soo jeedinayaa markastoon ilmano Sheekh Musa xaruntayada xaruntiina xarunta MLD waan ku faraxnaayo waxaan noo muujisiin oo u riyaaqnaa soo dhaweynta maamuuska leh quruxda leh iyo runtii tiro iyo tayaba leh ayaan markasta u riyaaqnaa reer MLD waa mahadsantihiin waxaan kale ku faraxsannahay inaad isku soo baxdeen ininka oo lacag inili soo siin basas inilagu soo ururin ayaan ku faraxsannahay runtii isu soo bixiinaasi wuxuu muujinayaa xubbiga iyo xiisaha aad u haysiin BSN aad u haysiin buu muujinayaa isu soo bixiinaasi wuxuu muujinayaa jacayl buu muujinayaa wuxuu muujinayaa jacayl aad u haysiin maaha shakhsiyadayada waa jacayl aad u haysiin qadiyadda aanu wadno ee ah isbedel curis runtii isbedelkuna waa dad cusub waa aragtiyo cusub waa mashruuc siyaasadeed cusub waa waxa weeyaan rajo cusub oo maamul cusub dhala dhegaysta runtii isu soo bixiinaa weyn annaka wuuna ciiltirayaa yakana wuu ciilayaa runtii oo waxaanu ognahay hadday ogolaan lahaayeen inaan maanta kulankeena aanu ku qabsanno bannaanka Pompiega in la isku arki lahaa oo usha ciilka loo tuura dhulka ay u soo dhacdeen oo ay noqon lahayd yowmal carafa ay weykaan lahayd walaalahay waxaan kale ku faraxsannahay cabsi la'aantiinaasi runtii waxay annaka nasiinaysaa dardar waxay nasiinaysaa dhiiranaan oo waan ku dugsanaynaa runtii cabsi la'aantiinaasina waxay na tusaysaa inaanu qadyadda aanu wadno keli aana u ahayn bayna tusaysaa oo waxayna siinaysaa kalsooni oo waxaa la yidhi qof ay kalsoonidiisu u dhisan tahay uunbaa inoo dooni kara waxa inaga maqan aynu rabno kalsoonidaasina waxay ku dhismaysaa runtii wada joogeenna waxay ku dhismaysaa wada shaqaynteenna iyo waxay ku dhismaysaa is-aaminaandeenna aynu is-aaminsannahay walaalahay waynu wada ognahay daliskani dhibaatooyinka iyo hagardaamooyinka uu dalka u geystay 49 sannadood oo waynu wada garanaynaa keena dabadda ku maqan iyo keena dalka joogaba halkay wax ka qurmeen halka laga qurmiyey kuwa qurmiyey iyo sida loo qurmiyeyba waynu wada ognahay ma qof bay ka qarsoon tahay runtii nidaamku siduu dadkeena u hagaldaameeyey uu u dhibaateeyey ma qof bay ka qarsoon tahay dee waxaa la yidhi wax maxay ahaydey law indhaheenu wada arkayaan laguma kala duwanaan karo waxay gacmaheenu ay taaban karaan laguma kala duwanaan karo waxay cilmi baadhis ay tirikoobtayna laguma kala duwanaan karo waa sidaa awgeed waxa midaata aad u wada tidhaahdeen maya waa wada ognahay walaalahay bal u fiirsada wadoon ma xaaja doosan baa hayni weydiiye inay laamiyaasheenii
ay ku burbur iyo qaab daran ay ku dambeeyeen bal soo mara cag ku soo mara baabuur laguma mari karaya bal cag ku soo mara avenue 26 saa u soo socda uun maskaradii kartay sii soo hormara riide zaylac soo hormara soo durka sinamole baali iyo geele badal soo hormara maxay ahayd maskaradii reer ku taagay waxay ku sugan yihiin burbur iyo baaba bay ku sugan yihiin de maxaajo toosanba inay laamiyaasheenii iyo wadooyinkeenii ku sugnaadaan marka la eego maskarada reer iyo maskaradii siis waxaa is ag yaala diimiskii iyo xawaashkii la iibinayay waxaa ka dhashay cuduradan cusub ee la dawayn kari laayahay ay la garan laayihiin la magacaabi garan laayahay oo maxay ahayday dawadoodiina la helayn waa waxay ka dhasheen inay diimiskii iyo iswada ag yaalaan raashinkii iyo cuntadii ay cuni lahayna meel lagu wada iibinayay runtii yaraantaydii waxaan xasuustaa maskarada reer waxa agteeda yaalay iminka way burbureenbe 2 teeraan oo la oran jiray de uu garan qofkii dhulka geli jiray sideedamadiiye 2 teeraan oo yaryar oo ekibdekaadka lagu talagalay oo yaraantii aanu ku ciyaari jirnay maanta ma jiraan maxaa baabiyey waxaa baabiyey diimis waxaa baabiyey uskag waxaa baabiyey qashin abay yaraatee ma jiraan runtii markaan dib u eego yaraantaydii waa maroolo dilaacaa maanta dhulku siduu ku sugan yahay annakuna mashruuc siyaasadeedkayaga waxa ku qoraan inaanu dib u yegleeli doono oo dib u dhisi doono insha allah wadooyinkaasoo dhan oonu u waxayn doono laami ay maraan dadku laami gawaadhidu ay marto iyo laami ay biyuhu ka qulqulaan baanu ugu talagalnay magaalada Jabuuti mashruucayaga waxa ku qoran inaanu magaalada Jabuuti ka dhigi doono insha Allah magaalo cagaaran Jabuuti ville verte inaanu ka dhigi doono runtii maxaajo toosanba inaad runtii guryaheena oo qashinka dameer inaga qaado maxaajo toosanba ilaahay baa inagu dhaashay qarnigan joogna maanta waa qarnigii 21aad dameer baa inaga qaada wali maxay ahayd qashinka iyo kaariyoone wallahi waa maasantiin iyo kaariyoone ayaa inaga qaada maxaajo toosanba walaalahay korontada dalku waxay tahay qiimihiisu ka ugu qaalisan weeyaan dunida iyo gobolkaba keena u xagaabaxa Kenya u xagaabaxa Ethiopia Soomaaliya Somaliland wuxuu soo noqdaa isagoo yaaban oo fajacsan oo ama kaagsan oo muxuu ka soo yaabay wuxuu soo arkay koronto 3 beesteena ayuu soo arkay runtii annakana mashruucayaga waxa ku qoran kaayaga waxaysta iyo kaayaga waxaysanba ugu yaraan inuu gurigiisa 2 kilimatiisar uu soo dhigan karo eega waxaan 2 kilimatiisar uu soo dhigan karo oo runtii qiimo dhimis ay ummadda reer Jabuuti ku farxaan aanu u sameeyna korontada ayaa noo qoran walaalahay internetkeena markaad eegtiin hadda kan Somaliland tagayaa siiya Tip Telecom baasiisa dalkeena siiya kaabalkan sii weebe ayuu ka qaataa markaad eegtid quwadiisa markaad eegtid qiimihiisa ka intaasoo kilometer masaafada maraya ayaa ka raqiisan ayaa ka xawaarad weyn keena maanta halka ka bixinaya marka walaalahaygiyo warbal eega Somaliland maanta waxay noo dhigashaa 10 wadal raadinaya aqoonsigiisii raadinaya maantana waxa ka dhacaya ma qof bay ka qarsoon tahay waxa halka ka dhacaya halkan kuma hayno Soomaa waarun kuma hayno runtii walaalahay kuma hayno oo runtii mashruuc siyaasadeedkayaga ayay ku qoran tahay waxa soo dhan kiina maxay hayday akhrisan karayno dhagayso waan warramanayo waan sheeganaa waxa ku qoran kiina akhrisan karo akhriso waanu daabici doonaa baraha bulshada waanu soo dhigi doonaa dhawaan walaalahay
walaalahay runtii waxaanu xoogga saarnay baahiyaasha seeska u ah baraadhaha bulshada sida helitaanka cunnada biyaha dawada iyo xarumo caafimadeed oo tayo iyo tiraba leh ma waxaa inaga toosanba inaynu mar kasta maqalno dadkeennii waxaa lagu soo dhawaynayaa turkiga waxaa lagu soo dhawaynayaa hindiya waxaa lagu soo dhawaynayaa nairobi faransiiska masar ma xaalad toosanba maya dee maadaama mashruuc siyaasadeedkeenna aanu maxaa hil karino waa wax laga tegi doono ayay noqon doontaa oo dadkeenna waxaynu ku dawaysan doonaa hooyeenna dhan ilaahay noo qurxiyey baynu ku dawaysan doonaa hadduu ilaahay nafta inoo daayo runtii marka la isdhegaysto waxaa la galay rag dumar iyo maxay ahayday dhallaanba quus baa la galo oo waxaa la galay quus oo waxaa la yidhi maxay ahayday qoom hoggaan xun iyo qoys hooyo xun midna ma hana qaado ee dadkeennii way hana qaadeen waxaan leenahay ha quusanino waxaad tihiin idinku ka furfurayaal baa tihiin oo waxaa ka furfuraysiin xukunka ku dheganta ayaa ka furfuraysiin xukunka hadduu ilaahay raado haquusanina waxaad tihiin haquusanina wakhtiga la joogaa waa wakhti maxay ahayday cadceed duhur taagan iyo cadceed makhrib taagan tahay la kala dooranayo ayaa la joogaa waxaan iga leenahay haquusanina waxaa soo kamkamaya oo saxankii udgoonaa ee isbeddelka ayaa soo kamkamaya walaalahay waxaan iga leeyahay haquusanina oo isbeddelku waa uu imanayaayo waa hubaal maxaa ka dhigay hubaal waxaa ka dhigay runtii isbeddelku waa sunan ilaahiya oo maxay ahayday tallaabada qof walba way xadidan tahay karaanka qof walba wuu xadidan yahay iyo maxay ahayday qof kasta wuxuu xamili karana way xadidan tahay ilaahay subxaana allahi wa tacaala unbay awoodiisu xadidan ay tahay infini ee illimite walaalahay ha isla ogsoonaano waxaan ku soo xidhi ha isla ogsoonaa isbeddel wuu inoo imanayaa laakiin laba shay heshiisaan kusii haano maalintuu isbeddelku inoo yimaado waxaynu ku damaashaadi doonaa insha allah bannaanka maanta ay noo diidan yihiin boobiyeega ayaynu ku damaashaadi doonaa oo waxaynu ku qaadi doonaa heestii ahayd adaa soo dhacsadee sanka taag adaa soo dhacsadee sanka taag adaa soo dhacsadee sanka taag waxaan ku soo xidhi walaalahay talabaad heshiis ku nahay markuu isbeddelku yimaado waxa inagu soo qulquli doonaa nafla caalig badan baa inagu soo qulquli doonaa dee markaynu nafcaaligaa badan ay inagu soo qulqulaan dee waanu soo dhawaynanaa eryimayno oo waynu soo dhawaynanaayo waa dadkeennii oo waxaa la yidhi saddexna lama coloobo nin cagtaada yaqaana lama coloobo nin codkaaga yaqaana lama coloobo nin ciddaada yaqaana lama coloobo dee cagteenna way garanayaano cagteennu waxay garanayaan cag nabadoon ah inay tahay codkeenna way garanayaano codkeennu inuu yahay xaqdoon bay garanayaan ciddaynu nahayna way wada garanayaan markaa irimayno waynu soo dhawaynanaa waxaynu u muujinanaa naxariis baynu u muujinanaa